Asalaamu calaykum daawade fadlan haddii aad nagu cusub tahay ha ilaawin channelka in aad saarto subscribe. Beri waxaa jiri jiray wiilkan yar oo lagu magacaabi jiray Bashiir. Bashiir waxaa soo korisay oo uu la noolaa hooyadii. Aabihii waxa uu dhintay isaga oo yar oo maba garanayaba aabihii sida uu u ekaa. Bashiir waxa u timid hooyadii waxayna ku tiri wiilkaygiiyo waa aroor hore isku diyaari si aad u aado iskuulka waxaanan ku wadaa quraac balse waxa uu ugu jawaabay Bashiir hooyadii hooyo canjeeradan qalalan ma cuni karayo waxaan rabaa caano aan ku cuno canjeerada balse hooyadii waxa uu sheegtay inayna hayn wax caano ah laakiin waxa ay tiri waxaan aadayaa reerka deriska si aan markaas wiilkaygiiyo kaaga soo qaado koob caano ah oo aad ku quraacatid. Bashiir hooyadii waxa uu u timid oday ay deris yihiin waxayna ku tiri wiilkaygii ayaa waxa uu leeyahay koob caanaha uu ku quraacdo waxaan rabaa koob caanaha haddii aad heli kartiin inaad isiisiin ayay ku tiri odaygii balse odaygii ayaa ugu jawaabay ma jirto adduunkan wax bilaasha wax kasta lacag ayaa lasoo siiyaa waxaanan rabaa in aad guriga iyaga nooga shaqaysid si aan markaasi kuu siino maalin kasta koobka caanaha iyo waxoogaa kale oo lacag ah maad karaysaa ayuu ku yidhi oo shaqadaasi ma tahay mid aad qaban kartid balse waxay ugu jawaabtay haa waan karayaa ayay ku tiri waanan qabanayaa shaqadaas si aan markaasi u helo koobka caanaha ee wiilkaygu ku quraacanayo subax kasta sidaa ayay uga qaadan jirtay koobka caanaha waxayna ahayd mid markasta u shaqaysa xaafadaasi si ay markaasi u hesho wiilkeeda wixii ay ku noolaan lahaa ee cunto iyo wax kalaba ah sida dharka iskuulka iyo noloshiisa kalaba. Bashiir markasta waxa uu hooyadii u sheegi jiray inay tahay hooyada adduunkan ugu fiican waxa uu odhan jiray hooyo marka aan weynaado abaalkaaga waan gudi doonaa ayuu odhan jiray sidoo kale hooyadii waxay ugu jawaabi jirtay wiilkaygiiyo waan ogahay inaad ii abaal gudi doontid igana dhigi doontid markaad weynaatid boqorad. Waxa ay uga sheekan jirtay sheekooyin macmacaan isagoo marka dambe dhabteeda ku gam'i jiray. Waxa ay karisay Bashiir hooyadii cunto aad iyo aad u macaan badan waxayna u keentay Bashiir ayay u keentay balse Bashiir waxa uu ka codsaday hooyadii in ay la cunto cuntadan aadka u macaan. Waxay u sheegtay Bashiir hooyadii waxay ku tiri wiilkaygiiyo anigu way ii taalaa ayay ku tiri oo hadhow toole marka aan nasto ayaan cuni doonaa cuntadan aadka u macaan waxaan rabaa inaad ii cuntid adigu. Bashiir cuntadii macaaneed ayuu cunay markii uu soo galay jikadii waxa uu arkay distidii hooyadii cuntada ay ku karisay oo madhan balse waxa uu yidhi hooyadii wax cuntaa uma hadhin si ay aniga aan ugu cuno cuntadaasi si deganaansho leh ayay ii tiri cunto ayaa ii hadhay waan ka xumahay ayuu yidhi isagoo arrinkii ka xumaaday waxaana indhihiisa ka soo daatay ilmo markaasi uu ka xumaaday hooyadii. Bashiir waaye fara badan ka bacdi oo hooyadii ku soo korisay xaalad adag waxa uu noqday nin weynaaday waxa uuna ka shaqayn jiray xafiis isla markaasna waa uu guursaday balse Bashiir ma uusan ahayn mid guda xaqii iyo hooyadii xuquuqdii ay ku lahayd waxaana markasta canaanan jirtay xaaska Bashiir oo ahayd naag aad iyo aad u madax adag markastana waxa ay ku diri jirtay Bashiir hooyadii ayay ku diri jirtay waxayna odhan jirtay islaantan waa islaan madax adag waxaan kale oo rabaa in aad iska geyso tuuladii ay ka timiday oo markaasi adiga kugu soo korisay waayo islaantani waa islaan aan xidhanayn dhar qurqurux badan waxayna nagu ceebeynaysaa dadka ayay ku odhan jirtay Bashiir balse Bashiir waa uu qaadan jiray xaaskiisa hadalkeeda waxa uu u yimid hooyadii isagoo markaasi ku qayliyay oo ku yidhi hooyo waxaan jeclaan lahaa in aad adigu iska aadi tuuladii aad markaasi aad aniga igu soo korisay maxaa dhacay ayay ku tiri wiilkaygiiyo waxa uu ku yidhi biilkaaga hooyo halkaas ayaan kuugu soo dirayaa fadlan hooyo halkaas iska tag waxayna ku tiri wax biila uma baahni aniga ayaa intaan noolay shaqaysanaya wayna iskaga dhaqaaqday. Maalmo ka bacdi Bashiir waxaa la soo daristay xaalad caafimaad darro waxa uuna aaday dhakhtarku waxa uu u sheegay in ay labadiisa kaliyood ay midi shaqaynaynin wax yar ka bacdina ay fadhiisan doonto oo markaas u baahan yahay in laga bedelo. Bashiir waxa uu la socodsiiyay arrinkii xaaskiisu waxay ugu jawaabtay waan ka xumahay waxa uu wacay Bashiir asxaab iyo ehel markaasi ka caawisa arrinkan si ay u siiyaan hal xabo oo kaliya
balse dadku waa ay la yaabayeen wax kaliyana ma aysan siinin. Dhakhtarkii ayaa la soo hadlay Bashiir waxa uuna ku yidhi kalidaadii waan helay, waxa uuna ku sameeyey qalliin, isagoo qalliinkii noqday mid lagu guulaystay. Maalmo ka bacdi Bashiir waxa uu ahaa mid caafimaad qaba oo cagihiisa ku socda. xaaskiisa ayaa markasta waxa ay odhan jirtay oo ay markaasi ku diri jirtay hooyadii, iyada oo ku leh hooyadaa ma aragtay intii aad xanuunsanaysay amaba se aad dhakhtarka ku jirtay kuma aysan soo booqanin. hooye ma aha taas ayay odhan jirtay, warna kaama hayso in markaasi keli lagaa saaray oo aad dhakhtar gashay. Bashiir waxaa loo soo diray taleefan dhankaas iyo tuuladii ah, waxaana loo sheegay in ay hooyadii ay gurigeedu 5 cisho uu xidhan yahay, wax ka soo baxayna aan la arag. Bashiir waxa uu yimiday tuuladii, balse marka uu yimiday gurigii waxa uu arkay hooyadii oo markaasi aynan nafi ku jirin oo dhimatay. dadkii waxa ay u sheegeen inuu hooyadii cidleeyay. dadka tuuladuna ay markasta ku odhan jireen aaway wiilkaagii, aaway wiilkii kaliya ee aad dhashay, sidaa darteed in ay iyadu ciil u dhimatay oo ay markasta guriga isku xidhnaan jirtay iyada oonan ka soo baxayn halkaasi. aaskii ka bacdi waxaa loo sheegay Bashiir in ay hooyadii uu si xun markaasi isagu ula dhaqmay. dadkii tuulada oo dhan ayaa isku soo aruuray, waxayna u sheegeen, waxa ay ku dhaheen Bashiirow, maanaan ku moodin inaad noqon doontid sidan, waxaad noqotay qof caasi waalidiin ah. ma ogtahay ayay ku dhaheen in ay hooyadaa adiga dhibaato aad iyo aad u badan oo ay kugu soo korisay, waxayna ahayd mid kuu soo dhabar adeegta sidii aad heer u gaadhi lahayd, waxaanad ka soo eriday adiga iyo xaaskaagu gurigii ay markaasi idinkula nooleed. ma ogtahay in ay kelida kuu saartay hooyadaa? indhaha ayuu taagay, waxa uuna yidhi yaa. waxa ay ku dhaheen markii aad xanuunsanaysay ee aad ku jirtay dhakhtarka, iyada ayaa dhakhtarka u tagtay, waxayna ku tiri wiilkayga aniga ayaa u saaraya kelida, mana rabo inuu ogaado. war kelidan aad ku socsocotid iyada ayaa kuu saartay, keliya waxaa la ogaa dhakhtarka ayay ku dhaheen. adiguna waxaad noqotay mid caasi waalidiina oo hooyadii abaalkeeda aanan gudin. balse Bashiir ilmo ayaa ka soo daadatay indhihiisa, isagoo aad iyo aad u qoomameeyay markii uu ogaaday in ay hooyadii kelida iyadu ay u bixisay. waxa uuna yidhi waan ka xumahay ayuu yidhi, balse maanta waxba ma qaban karo oo maanta hooyaday waa ay dhimatay ayuu yidhi. waan ka xumahay isaga oo ilmada indhihiisu ayna kala joogsanaynin. waxa uu xasuusanayay hadalladii uu ku odhan jiray hooyadii, hooye marka aan weynaado waxaan kaa dhigi doonaa boqorad. iyaduna ay odhan jirtay haa wiilkaygii oo uma baahan doono markaad adu ii shaqaysid qof markaasi aan u soo shaqeeyo. waxa uu yidhi waxaan rabaa hooyaday inay i cafiso, balse maanta ima cafin karto. daawada sheekadani waxa ayna baraysaa amaba se aan ka baran karnaa in aan ka ducaysano waalidkaagu inta uu nool yahay oo aad ka faa'iidaysatid jaaniska qaaliga ee aad haysatid. waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyowga. sheekadeenna maantana intan ayay ku egtay. haddii aad ka heshay sheekada, la wadaag asxaabtaada iyo faamilkaaga una sii sheer garay fiidiyowga.